انتهى فدرالك كو صاري nin hore hadlay hadalkiisu jawaab buu lahaa soo muuqatay ma garanayo dastuurka la dhigtay haddaan u noqdo federal weeyaan federaalkuna waa inaad wax dhistid adigu anigu ku dhisi maayo anigu waxaygu waa dhistay waan haystaa adigu maxaad dhisatay waxa aniga deynka la igu yeelanayo muxuu yahay adigu waxba ma baad dhiibtid ma adoon wax dhiibaan anigu wax dhiibaa waa maya wey taageeradan dibadda bixiso yaa ku sii maan sariifku wuxuu la shaqeeyay dawladdan hawiyaale lacagta timaadana hawiyaale warkada baalka u furso dhulka Soomaaliyeed inta hawiya daga way warkada war sida ma sheekado bal furso haddana waxa la leeyahay Puntland waa goosanaysa Puntland waa goosanaysa war bal dhan isku raaca marka adinku dhan isku raaca oo maxaa barnaamijka miska idin saaran maxaa haysan halda nacam waa inta rabna weey hadalkaas aan karno bas isku soo xoori marka niyahow Puntland waa dawlad sugaysa federal Soomaaliyeed muddo sugaysa xamar waa fashilantay qarannimada Soomaaliyeedna waa ku fashilantay caasimadda dalka Soomaaliya ayay ahayd waana ku fashilantay caasimadnimadii ummadda Soomaaliyeedna xaq uma lahan 20 sano dabadeed in nin xamar ka yimid intuu istaagayna waxba aan idin sheegay xishood xagee taagan tahay meeda qarannimada Soomaaliyeed meeda caasimadii meeshii 100 sano la dhisay maalin walba waa dumisaa dheeli ayaad madfac la dhacday dumisaa anna waan dhisaa maalin walba aniguna maalin walba waan dhisaa qof ku soo waa laga soo barakacaa anna waa la ii soo barakacaa adiga laga soo cararaa anna waa la ii yimaada madax dad baad ku rartay maalin walba la goostaa qof muslimna shahaadanaya madaxiis baa intii la goosto Allahu akbar la yiraahdaa qof muslina madaxi baa intii la goosto baa kor loo qaaday Allahu akbar balaalka u fiirsada dhalinyaro masaakiina oo adigu aad u diiday nolol iyo shaqo ayaa gacmahooda la guraa lugahooda la guraa waad baqaysaa oo xamar xaafad kamida uma bixi kartid magaalada Muqdisho xaafad kamida ma tagi kartid war maxaad ugu hadlaysaa gaalkacay boosaaso waa 750 kilomitir way afar xaafado xaqiirnimada xaqiir inaad tahay baan ku sheegay xaqiirna waxa la yiraahdaa qof wuxuu haysto qofka xaqira ila isku day inuu ka xaqiro 780 kilomitir sorry waa isa soo dhamaa ugu dartay meesha la bayla iyo boosaasana waa 800 kilomitir way markaad boosaaso oo bayla aadaatid balaalka u fiirso bal inta isku dar saddex u dolool laba meel weey dhulka Soomaaliya xaqiir iyo xaqiir ku dhalay xaqiir iyo saddex u dolool 33% way saantaad may qabsatid hadlaysaa khalka saanka iskala way una koysatay bakwa adoo kale in dhageystamaan waa tiranta qofku markuu jirayna xal ma lahan way Abdullah Yusuf shaqo badan buu qabtay xaaraantii dhamay lacagtii ahayd waa burburiyay ayri ciida yaa badan been buu ka dhigay qoyoti buu ka wada dhigay shaqadiisii buu gutay dawlad qaran oo lagu taaganto shariifku uga tagay xagee buu geeyay marka shariifku may xagee wada anaga hiraaba leeyahay baadna break looga boodo xaan sameeyo dad ma adu ayr baata ayrna maanta sheeg waa lacagna ma hayo wuxuu yiri ayraan oo dhulka waxaan ku xukumaa meediyo iyo money iyo Mooriyaan Malaysia Mooriyaan ku deysay manina ku daayay meediyo un baa xogaa Yusuf kale kaliya jooga intii kale waa ku deysay kana dad ma kala tuurina sheegay waa dhamatay way ma yeeshay adiga ayr baato ayrna maanta waxa uu yaalan dhulkaada maxaa istaa un baa ku taale maxaad ila iimaanaysaa ku taale xamara wax ku leeyahay bas wax kale iimaanay أنا أمرنا وادن تبلا دعدي مركز يسكت الحوري رجع إهلو عقلك فيريا سيد الدعاء ما حقره يعني دعاء السياسة مركز تسوي واسنا بعين
bari ducaale ma joogtaa wallahi siyaasaddu waa isku nabcayn billahi tallahi ducaale laakiin waan qiraya nimaan la doodi karo la googoosan karo wuxuu diiday cabiri kara wuxuu raba cabiri kara hadalkiisa ana been ku darayn lala xaajeysan kara way siyaasadna waan isku nabcayn aniga soo qol dhamaan dartii uga tagay intuu yimid waa darunta wanaagsan ma ogto ha oo siyaasadda rag heshiis ku amaananayn caawa ka horna ismayna arag marka anigu xaqiir ma ihi laakiin ninka qarandoon inuu yahay dawlad ku nool yahay yaqaan rabo in la xukumo wax inuu xukumo asna la xukumo ayaan aaminsana war adkaysta ya akhi adkaysta adinka halkaas dhigaan wallaan idin dhigin magaaladii xamar ahayd ilaahay baa idin ku dhaariyay xamar maanta meelaha qof baa ku nool qiyaasta labada gees baa qaxooti looga yaa ka dambeeyay adaa ka dambeeyay gacanta kuwa jaranaya yaa abuuray yaa abuuray yani gacantaan la jaranayo yaa abuuray surkaan la goosanayo yaa abuuray marka nin walba geedku abuurtay mara ka gurtaa oo weliba sii dhalay de ha marka calaa kulli xaal dhammaantiin kaftan iyo sheeko wanaagsan dadka xaqiiqda ka hadlaya xaqiiriinta aan ahayn qofku wuxuu haysto u qiraya waxa mataqaana asagoo haysta miiska saaranayo dadkaas la gogosta midda kaleeto war haddaan maanta waa go'ay maxaa qaban kartaa waa adiga caada haye shakhsiyad maxaa ku caawin kartaa waan goostay haddaan ama abaaraan helo ama aan gaajo ahaado ama faqri aan ahaado waan goostay haddaan idhaahdo shakhsiyad maxaa ka caawin kartaa nasin waxba kama caawin kartid maadaama aad waxba ka caawin karin inaa ka heshimaan nugaaliga bari bal gaalkacyata gaalkacyo igu imow aeroboort gaalkacyo ka soo deg canshuur baan kaa qaadanaya aduu idab leh haddaad diidna laba dharbaaxaan kugu dhufayna waan ku xidhaya adugu dawlad umaada baran oo mataqaanaa askariya waa necab tahay oo biliqada iyo boobkaa ka jeceshahay laba dharbaax dhag dhag baryaa gal halkan adoo raalliyaad gelaysaa marka marka saaxiibayaal kaftanka iyo sheekada nin walba meeshuu tago ayaa loogu tagaa dib dambana haddaad aflagaadiya mahmaah xun iyo khalad iyo keentid waa sii soconaynaa nala kamana badiya baasha noloomana bilaabo runtaan kuu sheegaya sheekanaysa nin kaftan rag odayaala kaftamayay nin watay maxaa shiikow miyuu ah oo si fiican runtii u kaftamay oo dhegdhegayaa joogay sanku caawa ma xumayn inkastoo salabaanku baryahan xoogaa iska tabardareeyey inkastoo jeebkiisa salabaanku baryahan martay ma hadal xumayn soomaaliya gar ducaale nacam laakiin waxaan la imaanay taxubayaa la yihahdaa muduloodaana war mudulood maanta mara wey runtaan kuu sheegaya mudulood maanta waa mara wey haddaa u kaftan aka tagno mudulood maanta waa mara wey mara waxa weeyaan weli waxaan leenahay dacas lagu socdaa tihiin saani waa dahabe mee dhulkaagii akh arkarbuna mugdi waa uka karaana dadka waa u kayd shambahayga harte shangaani layla sheegan ma digdig mee shangaani maaday bukudhaal madow aas fadhida wallahi waa iska jire waa la isu soo gala fuaad shangoole aas gacanta goosa wallahi meesha waa lagu jiraa cayara mooday akh iskaba yaaba isiba meeshaan gacanta la goosaha waay ya marka saaxiib halkaasaa xaal marayaa kusoo dhawow dawladda puntland shariifkuna waxaan leenahay si wanaagsan ha u hadlo ma ahan meeshu dugsi quraan ma ahan meel lagu xadreeyo ma ahan meel bun lagu cunayo qarannimo iyo dawlad baa laga hadlaya waraa fawzi saaxiibkay wallahi aniga saaxiibkay gooniyaad saaxiibkay khaas ah ayaa tahay fawzi wallahi waa ku ixtiraama soomaali garan waxaan anigu hadalka uga degayaa raallina iga ahaada kuma soo noqdan mayga oo wallahi waxaa igu soo celiyey tuxubow baa igu soo celiyay oo weliba hadlaya aflagaadadu ninkaa tuuri jiray salaamaanku ma sacadka waa ka tugtugrooyin been lama sheego sacadka dhulkii ka qaatay xarar dheeraba hadday heleen xoog ku qaateen salaamaanku baryahan may